kusoo dhawaada shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub maxaad ka ogtahay xiriirka ka dhaxeeya fanaanada qaaliladan iyo sidoo kale Raaga Cabdi oo ah milkiilaha Sword Studio oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaas oo inta badan duuba haysa xiriirkooda halkee buu maraya halkee buu ku dambeeyay aroos la sheegay inuu dhaxmini doono fanaanada caanka qaaliladan iyo sidoo kale Raaga Cabdi waxaan ku dul istaagi doonaa muuqaalkan xog ku ah arrimahaasi إلا وراديو أي شيء يعني حرير الشعل وده يراجع عبدي يشيد وكلا فنانات عنك قال لذن تاسي أو كسر مجال نيروبي يدلك كينيا حرير كان جعل أي بلاوي كدي مركي ترى دور جرا فيلم لقوم مقعب وقيانو أي كسر رحمقدين لبنا شخصي فيلم كان أيها مد أتريشو أي كتحي فنانات عنك قال لذن هالكاتروك يا هي راجع عبدي وعنا فيلم كان وياهي مد قيانا إسلامر كان لو قيامة يراجع عبدي فيلم كاس كدب وحلا ليهي وحا صائف بحذي إن حرير جعيل أو والئة ونحمري فنانات عنك قالدن يشدو كله راجع عبدي ورسول بحي وحي شيقيان إن حرير كودا وقاري هيرقور وحنا لشيقيا إن أي ربين إن أي دمع صناعيين إسلامر كان يكوي شيئين إن يسقور سدان هذا ما كل عاي قور كودي ay ku heshiyeen COVID-19 markii adduunka uu ka dilaacay waxa uu saameeyay wadamo badan oo caalamka ku yaala Raaga Cabdi sidoo kale fanaanada qaalidan waxay ku heshiyeen in arooskooda ay ka soo qayb galaan fanaaniin caan ah isla markaana qaarkood ka imaanay dalka Mareykanka qaarna Yurub ka imaanayay sida awgeed maadaama uu joogsaday duulimaadka caalamiga ah waxa leeyahay arooskooda COVID-19 ayaa saameeyay qaalidan oo ah fanaanad sidaas aan u qurxanayn markii loo eego fanaaniinta kale isla markaana garooba waxay dhashay laba cunug waxayna u dhashay liibaan jigjiga oo asana fanaan ah oo markii ugu horeeyay guursaday waxaan leeyahay liibaan jigjiga sidoo kale waxa uu kaalin weyn oo ka qaatay sidii masraxa fanka ay ku soo fuul lahayd qaaliladan fanaanada qaaliladan waxa sidoo kale caawiyay in fanka ay soo gasho Daahir Cali Sow markii hore waa uu karbaashay heestii ugu horeysay qaaliladan ay soo qaaday waxay ahayd Soomaali weynay sidee baan wax yeelnaa heesaska markii soo qaaday kadib Daahir Cali Sow waxa uu yiri saqiir la dambaajiyay oo magaalada Nairobi lagu dambaajiyay sidaas ay u karbaashay inkastoo markii dambe oo caawiyay oo garab uu siiyay isla markaana ilaa iyo masraxa ay ka soo gasho oo si weyn u caawiyay hadaba nala soco waxaan soo wadnaa fanaaniin kale iyo sidoo kale xog ku saabsan arrimahaas